shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda in ay soo kordhisay adeega casriga ah ee Muallim. Adeega Muallim ayaa ah mid loogu talagalay in macaamiishu ay aqoontooda ku kobciyaan, waxaana ku jira maadooyin 4 ah iyo layliyadooda kuwaas oo kala ah English, xisaab, physics iyo culuumta Islaamka. haddaba si aad isaga diiwaan gelisid una isticmaashid adeega Muallim, raac talaabooyinka soo socda. garaac xidig 144 gees kadibna guji OK. waxaa kuu soo bixi doona liiska adeegyada moobilka ee shirkadda Hormuud. taaba lambar 2 si aad u dooratid adeega Muallim. haddii ay tahay markii kuugu horreysay, dooro 1 si aad u furatid adeega Muallim. mar kale dooro lambar 1 si aad u xaqiijisid isdiiwaangelintaada. waxaa kuu soo dhici doonta fariin kuu sheegaysa in aad si sax ah isu diiwaan gelisay. si aad u isticmaashid adeega Muallim, dib ugu laabo shaashadda koowaad kadibna garaac xidig 144 gees. dooro lambar 2 oo ah adeega Muallim. kadib guji lambar 1 si aad u tagtid liiska maadooyinka. ka dooro liiska maadada aad rabtid adiga oo garaacaya lambarka ku hor qoran. sii dooro heerka waxbarasho ee aad doonaysid, sida hoose ama sare. waxaa kuu soo bixi doona liiska cutubyada. sii dooro cutubka aad rabtid si aad u aragtid casharrada ku jira. dooro casharka aad xiisaynaysid. cashar kasta waxaa la socda layli. si aad layliga isugu tijaabisid, taaba 1. si aad casharka ula soo degtid, taaba 2. ugu dambayntana waxaa fariin ahaan kuugu soo dhici doona casharkii aad dalbatay. faahfaahin wixii intaas dheer ka wac 141 waaxda qancinta macaamiisha ee Hormuud ama booqo www.hormuud.com.